بسم الله الرحمن الرحيم وعنو ونكسن داوديال meel kasto aad joogtaan soo dhawaada war degdega deegaan lagu magacaabo Haroorane oo u dhaxeeya deegaanada Dixda Sheekh Awaare iyo Cabdiqaadir waxa xilligan ka socda dagaal foolka fool oo u dhaxeeya ciidanka beesha Ciise iyo kuwa Gudubirsi dagaalka oo dhawaqiisa si weyn looga maqlayo Boorame iyo Saylac ayaa la isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan iyo qoryaha durnadooriga u dhaca ila xogogaal oo aan guurdhula hadalnayna warbaahinta waxay u sheegeen in dagaalka hadda socdo uu yahay mid aad u adag isla markaana la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan iyo qoryaha durnadooriga u dhaca rag saraakiil oo aan la hadalnay ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in dagaalka hadda socdo uu yahay mid aad u qaraar isla markaana dhinacyadu hubka noocyadiisa kala duwan ay isku adeegsanayaan laba sargaal oo sarsaro oo ka tirsan ciidanka maamulka Ciise waxay warbaahinta u sheegeen in ay ka warqabaan dagaalka hadda socda isla markaana ciidanka Somaliland dagaalka ay soo qaadeen waxa la isweydiinayaa dagaalka hadda socda ee Cabdiqaadir iyo Dixda Sheekh Awaare inta u dhaxaysa ka socda waxa la ii sheegay in ciidanka Samaroon ay weerar ka soo qaadeen kadibna kuwa Ciise istifaaceen ilaa hadduu weerar kugu soo qaado oo xabad kugu ridayo dabcan adiga gacmaha isma laabanayso waa istifaacaysa dhawaqa rasaasta iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa si weyn looga maqlay magaalada waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo labada dhinac soo kala gaaray rag saraakiil ah oo aan la hadalnayna warbaahinta waxay u sheegeen in ay ka walacsan yihiin isla markaana ay la socdaan dhaqdhaqaaqa halkaasi ka jira waxay xogo intaa ku darayaan in saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka beesha Ciise ay warbaahinta u sheegeen in ay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah isla markaana ay la tiigsan doonaan sharciga waxayna warbaahinta u sheegeen sidaas si lamida in ay og yihiin oo ay ka warqabaan dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda waxaan la hadlay dhowr xubnood oo saraakiil ah oo ka tirsan ciidanka beesha Ciise si aan dagaalka wax uga weydiiyo waxayse ii sheegeen inay warbaahinta la soo wadaagi doonaan khasaaraha dhimasho iyo mid ka dhaawac ee ka dhashay dagaaladii halkaasi ka socday afar xubnood oo saraakiil ah oo sarsare oo ka tirsan ciidanka beesha Ciise ayaa iyaguna goobta waxay ka sheegeen in ay aad iyo aad ula yaaban yihiin isla markaana ay la yaab iyo amaka ku noqotay sidii hadda wax u socdaan oo ku saabsan xaaladaha gobolka ka jira ragga saraakiisha warbaahinta waxay u sheegeen in ay ka cabsi qabaan isla markaana ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda walow markii dambe warbaahinta loo sheegay in raggan iyo kuwa kale oo arrimahan la socdaahiba ay tallaabo ka qaadi doonaan wixii halkaasi ka jira laakiin sida xaqiiqda ah marka la eego ama marka sida xaqiiqda ah loo fiiriyo dad badan waxay aaminsan yihiin in ay jirto aragti la xiriirta in ciidanka beesha Ciise xilligan ay qaadaan dagaalkaasna uu noqdo mid isku difaacayaan oo sharaftooda ku difaacayaan laakiin hadda sidii xaaladdu tahay arrimahan igu turtuurta ah ama la isku turtuuraya dad badan waxay aaminsan yihiin inaysan sinaba macquul u noqonin in xaaladdu ay gaarto halkii ugu sareysay oo maalinba maalinka ka dambeeya aan aragno dagaalo iyo xaaladaha oo faraha ka baxay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka militariga ee Somaliland waxay sheegeen inay dagaalka ku baxayaan oo dhaxdhaxaad ay ka noqonayaan laakiin Ciise waxay aaminsan yihiin in dagaal halkaas ka dhaca dhaxdhaxaad waxa la dhahay uusan jirin oo Sheekh Isxaaq ay dagaalka dabada ka horinayaan ama ay gadaal ka riixayaan Samaroonkana hub ay soo siinayaan waana sida saxda ah aniguna aan qirayo in nimanka la yiraahdo Sheekh Isxaaq dagaalka ay gadaal ka riixayaan waliba gadaal ka riixin maahay xataa in ay qaarkood ku lug leeyihiin ficilada halkaasi ka dhacay oo la sheegay in waxyeello ay ka soo gaartay dad rayid ah oo la sheegay xataa inaysan waxba galabsan beelweynta Ciise dhowr mar oo kala duwan waxay warbaahinta la wadaageen isla markaana ay sheegeen in ay aad ula socdaan dhaqdhaqaaqa gobolka oo ay sheegeen in ay ka warqabaan xogaha la helaya waxay tilmaamayaan in Ciisuhu ay ciidamo dheeraad ah ku daabulayaan gobolka isla markaana ay og yihiin xiisada halkaasi ka jirtaahi in ay saameyn ku yeelan doonto gobolka iyo arrimaha halkaasi ka taagan laba saraakiil oo sarsare oo kamid ah gobolka ama gobolka Salal ku sugan waxay warbaahinta la wadaageen xog sheegaysa in maamulka Ciisuhu ay aad iyo aad ula socdaan dhaqdhaqaaqa halkaasi ka jira oo ay og yihiin in maalinba maalinka ka dambeeya ay xaaladdu gaarayso meel aan waxba laga qaban karin afar bilood ka hor waxaan ogaanay isla markaana xaqiiqo noqotay in madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro uu amray in hub la siiyo beelweynta Samaroon hubkaasi waa la dhaqan galiyay loo yacada laga qaaday waa mid dhaqan galay laakiin sida saxda ah hadda
waxay xog u tilmaamayaan in ay xaaladdu adag tahay isla markaana meel adag ay sheekadu marayso samaroonka iyo ciisuhuna ay kala calaf qaadan doonaan maalmaha soo socda iyadoo isha lagu hayo xaaladdu siday noqon doonto iyadoo isha lagu hayo sida ay bal sheekadu isku rogrogto laakiin dad badan oo arrimaha la socda waxay leeyihiin way adkaan doontaa in xaaladdu ay sidaas ahaato haddii aan hadda la helin xal degdeg ah markana ila daawada muuqaalkan dowladda ka mid ee bees ciise matalayna naba matalaan war mayna matalaan bees ciise waxay leedahay aabbay leedahay ugaas bay leedahay ganday leedahay wasiirka arrimaha gudoomka shiraaca sitee soo rarayee geersa keenayee halkaa ciise u dhigada bursuu dhigayo been yey waxaad wadahay shirkayga jiraayid wuxuu ku saabsan yahay xukuumadda Soomaaliland ee ka mid ka nahay shirka jiraayid ay ka soo baxday ee ciisiga gada buursi baa gogol loo dhigaya gogol nabadeed baa loo dhigaya halkan shalay waxa loogu yimid dad ka yimiday Soomaaliland oo wasiiri iyo jananaaraba leh shacab waxay nooga qaadeen shirka jiraayid ay shalay noo qabteen waxay ku dhawaaqeen dawladda Soomaaliland gogosha ay dhigayso ciisuhu hadduu diido dawladda Isaaqiyo iyo Ciise inay madaxa isgelinayaan iyaga noo sheeg cid kale noo sheeg ragii aad soo dirsateen dawladda Soomaaliland ayaa noo sheegay shalay oo jiraayid qabtay gogosha hadduu ciisuhu diido dawladda iyo talaabo ka qaadayso wajigiisa saaraya haddaba shirkaas shirda ciise la ogeysiiyay ma shir la tashaday ma waa shir duuduubaho qasabaho xoog ku socda weey annagu markaan dita aragno go'aankayagu wuxuu yahay ciisuhu haa iyo maya midna male ilaahu haa iyo maya meel hayga siin baa leh ciisuhu aabuu leeyahay horaad maqasheen 100 jeer baa layni sheegay malaha waad halowsan tihiine ciisuhu aabuu leeyahay ugaas buu leeyahay gen buu leeyahay kuwa miyaad kala tashatay waa maya ma tashiin iska daayay maba ogeysiin waa gobasha baan dhigaynaa waaso gendow ogaado oo ka soo qayb gala ma adan ragaad noo soo dirteen waa rag inigu aad dhasheen idinka dhal midabkoon bay annaga iyo magacoon bay naga tirsan yihiin idinka dhal yaa wasiirka arrimaha gudaha nabad had dhigtaay gogol haddaad dhigtaay maalin qurayahay maalintii ilaahay ku kala mariyo waad garaway maalintaay waxay ahayd maalintuu ciisu yidhi xaflad baan ku dhiganayaa sayda xaflad nabadeed yaan ku dhiganayaa gada buursina uu yidhi kuma dhigan kartid maalintaa bay ahayd oo gogosha fitoo tiraa waa ciisu sayda maxaad ugu qabsanaysaa xafladda dhul badan uu bannaan yahay gada buursina maxaad xafladda ku diidaysaa sayda oo gogosha u dhigtay maalintaasay dhaweyday ahayd imika dabageliskii baa u go'ay dabageliskii baa baxay awrta saddex adhig baa hays baydi iyo caynka iyo dabageliski mid kastaba hadduu baxo awr khalaas buu noqonaya dee wasiirka arrimaha gudoomka shiraaca sitee soo rarayee geersa keenayee halkaa ciise u dhigada bursuu dhigayo been yey waxaad wadahay dee kun haddaan ciise kala tashay haddaan waxba ka weydiin haddaad qasabuun gogosha u kaalay aad leedahay ciise dee wuu diiday aabuu leeyahay ciisuhu meel quraa looga taliyaa wax 100 meel looga taliya maaha wax ninba meesha doonana ka hadlayo haye ka odhanayana maaha 100 jeer baa lagu sheegay maalintii haa iyo mayaad lahayd saddexda jeer baa haa iyo mayaad haysay ninkii hortaba ragaad qaabishay genduhu haa waa soo diray adaa qaabilay adaa soo dhaweeyey bishii 25 adigaa u qabtay madaxweynaha u geysay wuu kula aqbalay haddaad xasuusan tahayna maantaba kuu sheegnay annaguse shirka aad qabanaysaan goosha aad dhiganayso ciise wuu diiday u qaatay kol haddaad waxba nooga sheegin oo waxba naga ogeysiin aabbana aad ogeysiin abna aad ogeysiin gudana aad ogeysiin oo adiguna afduub ku wadato ciise wuu diiday meel kastaba ha jooga wuu diiday waxaan nahay marka la isku geeyo dhammaan waxaan ka mid nahay beesha ciise
waxa la yidhi beesha ciise ninka ciise waa isku mid ciise ninna caara ma dheera bay ahayd waxa weeye oo waddankan ka jira waxa timid halkan rag madaxa oo dadkan